magacaygu waa Amiir. Waxaan ahay 20 jir. Waxaan haystay shaqo iyo nolol aad u fiican. Waxaan lahaa mustaqbal ifaya. Balse hal maalin ayay wax walba isbedeleen. Rag hubeysan ayaa soo weeraray tuuladii aan ku noolaa. Guryihii ayay gubeen, xoolihiina way laayeen. Waxay garaacayeen qof walba oo ka hor yimaada. Waan isqariyay kadibna cagaha ayaan wax ka soo degay. Markii aan soo gaaray suuqa tuulada, waxaan arkay oo la kulmay qaar ka mid ah asxaabtayda. Waxaan ka wada tashanay wixii aan sameyn lahayn. Waxaan go'aansanay inaan isaga tagno tuulada. Maalmo ayaan sii lugeynay ilaa aan gaarnay tuulo noo dhaweyd. Qof walba shaqo ayuu raadsaday. Anigu waxaan isku dayay inaan shaqo helo. Shaqadu aad ayay u yareed, noloshuna way adkeed. Lacagtii yareed aan haystay waxa aan ku dhameeyay cunno iyo internet aan kula xiriiri jiray qaraabada iyo asxaabtayda. Asxaabtayda qaar dalka way ka dhoofeen, iyagoo nolol cusub ka bilowday dalka dibaddiisa. Sawirro farxad ka muuqata ayay ii soo diri jireen. Anna aad ayaan uga maseeray. Mid ka mid ah asxaabta ayaa la soo hadlay oo la dhaho Ibraahim. Wuxuu ii sheegay inuu jiro nin ay yaqaanaan oo igu caawin kara inaan dalka ka dhoofo oo aan tago dibadda. Kadib ninkii ayuu isu keen xiray. Maqaayad ayaan ku ballannay. Wuxuuna ii sheegay inuu isaariyo doon igeenaysa Liibiya kadibna aan tagayo Yurub, isagoo ii sheegay in lacagta laga qaadayo marka aan tago Yurub. Wax walba si fudud ayay u muuqdeen. Waan ogolaaday. Goobtan laga qaadayay ayaan tagnay. Waxaa ku sugnaa dad fara badan. Baskii ayaa yimi. Waanu iska buuxinay. Xaaladdu aad ayay u adkeed, ciriiri badanna wuu jiray. Waxayna geeyeen guri aan ciidi ku nooleen. Hub ayaana loogu soo dejiyay gaarigii. Qof walba oo diidana way garaacayeen. Waxay noola dhaqmeen sidii xoolihii. Marba guri ayaana la geynayay. Mar walbana xaaladdu way sii xumaanaysay. Jirdilka waxaa noo dheeraa gaajo. Safarku ma ahayn mid fudud, balse aad ayuu khatar badnaa. Ma ahayn inaan rumaysto Ibraahim. Ma ahayn inaan ku kalsoonaado. Ugu dambeyn waxaan tagnay Liibiya. Lacag ayaana la weydiiyey. Intaynii bixin weysay xabsi ayaana la dhigay. Boqolaal qof ayaa hal qol lagu wada xiray. Mar kale ayaa lacagna la weydiiyey. Anigu waxba ma hayn. Aad ayaa la ii jirdilay. Waxaa la ii ogolaaday inaan la hadlo qoyskayga. Waan la hadlay waalidkay. Waxaan u sheegay in la ii diliyo haddaan bixin waayo lacagta. Ooyinta hooyaday ayaan ka dhex maqliyay taleefanka. Aabba ayaa raggii u sheegay inay lacagta bixin doonaan. Waxaan u sheegay ragga ay haystay in qoyskaygu ay yihiin dad yar oo aysan awoodin lacagta. Mar kale ayaa la ii jirdilay. Waalidkay way maqlayeen ooyintayda markii la ii garaacayay. Waalidkay hadda waxay raadinayaan lacag aysan awoodin. Waxaan dareemay inaan ahay dambiile, balse nolosheeda ayaan u cabsanayay. Maalmo kadib, albaabkii ayaa la soo furay. Bannaanka ayaa la ii soo saaray. Waxaana la ii sheegay in qoyskaygu ay bixiyeen lacagtii oo la ii qaadayo Trablis. Gaarigii isiday wuxuu ii geeyey xeebta. Halkaas waxaa ku sii diyaarsanaa doon yar oo la buufinayo, taasoo noo qaadaysa dalka Talyaaniga. Doontii ayaan raacnay annagoo aad u fara badan. Waxaan ka baqayay inay doontu nala degto. Baddu aad ayay u kacsaneed. Saacado kadib, matoorkii ayaa naga istaagay. Habeenkii oo dhanna hirka bad ayaa marba meel noo dhufanayay. Ugu dambeyn waxaan aragnay iftiinka doon weyn oo noo dhaweyd. Waxaan moodayay inay na badbaadinayso, balse wayna dhinac martay. Saacado kadib waxaa gacanta nagu dhigay ilaalada xeebaha dalka Liibiya oo dib noogu soo celiyey Liibiya, halkaas oo mar kale lagu xiray. Xaaladdu aad ayay u adkeed. Kaliya waxaa meesha ku yaalay hal suuli. Dadkuna aad ayay u badnaayeen. Cuntana maba aysan jirin. Hadda waxaan ahay bannaan jiif. Ma haysto wax shaqo ah. Ma aqaan meel aan aado. Waxaan ka fikiraa mar walba qoyskaygii iyo wixii ay dartay u sameeyeen. Waxaan rajaynayaa inaan abaalgudo oo ay ugu faanaan maalin uun, balse ma aqaan maalintaasi xilliga ay imaan doonto. Haddii ay ku soo gaarto sheekadeeda,
fadlan la sii wadaag asxaabtaada. tani waa qisadeeda dhabta ah. maxay hanad hooyo weyday maxay hurda seexan weyday maxay ilmahay bibiqlaysay miyaydan wararka haynin